بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين على أمور الدنيا والآخرة وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. مدنيال إيا مروي وحانو بحر السلام يا مدحوينه جمهورية ماليلاند يا هراء وطببره نرشا سياسة صوت طببره مدشا يسقط سنة الله أحمد محمود سلاهي مدحوينه كهرية ظاهر ريال كاهن oo ahaa madaxweynihii bilaabay inuu doorashada bilaabo kuna magac iyo maamuus leh inuu xilka si geliyo oo doorasho weeyii waxaan mahadnaqayaa warka ka hambalyeynaya golihii wasiirada ee xukuumadda Axmed Maxamuud Silaayo oo dalka 5 sanadood hawlo laxaad leh oo horumar ka qabtay suuqada galiyay inay doorashadu si nabad ah u dhacdo. waxaan ku hambalyeeynaa madaxweynayaashii ku-xigeenadii hore oo saaxiibaday ah oo ugu horeysiinayo Mujaahid Xasan Ciise Jaamac oo aanu isku waqti iyo da ahayn maantana aan aad ugu faraxsanahay inuu ka soo qayb galay madaxweynihii hore Cabdiraxmaan Cali mujaahidkii weynaa oo isaguna hore dalkan ugu soo noqday madaxweyne ku-xigeen iyo Sheekh Axmed Yuusuf Yaasiin madaxweyne ku-xigeenkii hore ee dalka. waxaa kaloon halkan ku soo dhaweynayaa aad ugu mahadnaqaynaa golaha guurtida gudoomiyahooda oo oday mujaahid rugcadaa ah oo in badan dalkan soo shaqeeyay gudoomiyaha golaha wakiilada baashe oo in badan soo hogaaminaya golaha wakiilada. waxaan si gaar ah kaliya laabo soo dhaweynayaa saaxiibkaygii ila tartamay ee iyo haneeyay ee laba goor oo hore dalkan intuu ku tartamay haneeyay Faysal Ali Hussein Faysal Ali Waraab. waxa kaloon hambalyeynaya meelu jooga baan soo dhaweynayaa saaxiibkayga ila tartamay oo dalka dibadda kaga maqan mudane Cabdiraxmaan Cabdullaahi Cirfo oo isaguna ogolaaday natiijadii iyo xisbigiisaba. intaa kadib waxaan aad soo dhaweynayaa madaxda inoo timid ee dalalka jaarka ah iyo kuwa fogba. waxaan ugu horeysiinayaa saaxiibadayda ama aan isugu dhawanahay af iyo diin iyo dhaqanba ee jamhuuriyadda Jabuuti ee uu hogaaminayo saaxiibka Cali Xasan Bahdoon. waxaan soo dhaweynayaa madaxda ka timid Ethiopia dowladda federaalka Ethiopia dhammaantood oo si gaar ah u soo dhaweynayo dowladda deegaanka Soomaalida oo af iyo dhaqanbooda aanu isku madahay oo hogaaminaya madaxweyne ku-xigeenku iyo dowladda federaalka Ethiopia guud ahaanba wasiirka gaadiidka Axmed Shide oo naga mahadnaqayna saaxiibtinimada dhaxaysa. waxaa kaloo aad soo dhaweynayaa dalka Kenya gabadha hogaaminaysa waftiga xildhibaanada ah oo ku hambalyeeyo inay tahay gabadhii koobaad Safiya ee noqotay xildhibaan dalka Kenya Soomaaliyeed. waxaan leeyahay maanta dalalkii Soomaaliyeed qaybtii Jabuuti qaybtii Ethiopia qaybtii Kenya Somaliland waxay naga dhigan maanta qaybtii Muqdisho oo ay ahayd iyagoo qaranka Soomaaliland ictiraafsan ka soo qayb galaan. aan filayana dhawaan ka soo qayb gali doonaan oo aanu iskaashan doono oo aanu dad iyo dhaqanba wadaagno laakiin ay arintayadu suurtooday inay mid noqoto duruufay dhacay awgeed deetana nin waliba dawladdiisa iyo qarankiisa gaar u dhistay iyagana waa u dacaynaa dhibaatada ka baxaan iyagana waxaanu ka rajaynaynaa ugu hambaliyaan wixii talaabo horumaray aanu sameynay. intaa ka bacdi waxaan si kalgacal iyo xishmad baan u soo dhaweynayaa wufuudda inooga timid dalalka Yurub dowladaha EU-da ama Yurubta midowday oo ay hogaaminayso gudoomiyaha ambassadorka EU-da ee fadhiya Kenya oo saaxiib dhow la ah Somaliland iyadana waa soo dhaweynaynaa iyo ambassadorka la socdaba waan uga mahadnaqaynaa taageerada inoo galaan. waxaa kaloo si gaar ah u soo dhaweynayaa oo muddo karnimo safiirka UK oo halkan 3 jeer noo yimid balaha bil gudaheed
oo noo muujiyey inuu naga xigo kuwa kale sida uu noogu dadaalay iyo ballanqaadkii lacageeda maanta oo halkaa ka muujiyo ku taageeraya somaliland si kaliya allah baan ugu soo dhawaynaynaa waan uga mahadnaqaynaa dowladda UK deeqdaa ugu horreysay ee halkan kaga dhawaaqeen dhammaan mudakarka somaliland iyo madax dhaqameedka nooga yimid dowladda Ethiopia iyo Djibouti ba aad iyo aad baan soo dhawaynayaa si gaar ah waxaan soo dhawaynayaa ugaaska guud ee beelweynta Ciise Mustafa oo maanta markii hore soo hambaliyeeyay oo telefoonka igala soo hadlay haddana martiqaadkii ku yimid waqtigiisii soo dhawo Mustafa garaadka beesha inta leeg adigoo qura Soomaali ka jira wax beelinta la garaado ah intii kala tafraaq waa ku dhacay Allah ku barakeeyo soo dhawo inta markaan dhaafo soo dhaweynta iyo mahadnaqa maanta anigoo bulshada iyo madasha bilana inta la hor taagan waxaan dareemayaa culayska iyo miisaanka ay leedahay xilka la idhaariyay ee Somaliland xilka la idhaariyay ee Somaliland culayska uu leeyahay waxaan xusuusanayaa wixii loo soo maray kuwii u dhintay naftooda u horay kuwii ku dhaawacmay kuwii maalkooda u horay kuwa ku agoobay iyo kuwa ku goblamay ee maanta nool iyo kuwa dhintay sharafta iyo maamuuska aynu maanta ku jirno inagu qadarinayaa waa dhiiggii dadkii Somaliland u soo huray taariikh ahaan marka laga soo bilaabo ilaa daraawiish ilaa SNM Somaliland waxay leedahay taariikh dheer oo mar walba gobolnimada ay u dagaalanto hadduu isticmaar yahay iyo hadduu cadow ku soo duulay yahay iyo hadduu maamul xun oo qabsadaba yahay taariikhdu waxayna furaysaa Somaliland inay leedahay taariikhdii ugu horreysay ee si miisaan la ula dagaalanta isticmaalkii caddaha ee Afrika soo duulay daraawiishtii Sayid Maxamed Cabdullaahi Xasan waxay qaadanaysaa taariikhda koow cidda qura Afrika ee diyaaradda u duqeeyay waxa sii muuqda raadkeedii waxa ku xigay taariikhdii ahayd Sheekh Bashiir iyo culimadii ka dagaalantay gumaysiga ee jirkooda iyo naftooda u horay waxa ku soo xigay kuwii siyaasadda ku soo dagaal galay ee xisbiyadii SNL SNM NUF iyo USB iyo dadkii hogaaminayay oo maanta badalkooda naga hooseeyaan waxa ku soo xigay SNM waxaan doonayaa halkan inaan ka caddeeyo dad badan oo taariikhda ama wixii jiray si qalad u fahamsan walaalayaal Somaliland ismay dirin SNM Somaliland ma dagaalamayn taliskii macangaga ahaa ee naxariista darra ee Soomaaliya oo dhan afeeyay markii aan la wada dagaalamayn dhexdeena isaga khilaaf ka abuuray oo laga yaabaa inanka joogay Sool in laga dhaadhacsiiyay SNM gurigaaga iyo reerkaaga weeraraysa dabeetana uu daafacayay wuxuu la mid ahaa kii SNM ee ka daafacayay Soomaaliya oo dhan dhibaatadii ku ahayay taliskii afweyn inanka Boorama joogay ee la dagaalamayay SNM uu haysan nacayb uu qabay SNM iyo cadaawad ka dhaxaysay ee waxay ahayd balaaye iyo aafa uu ka dhaadhiciyay taliskii Siyaad Barre oo ahayd SNM waxay ku soo duulaysaa dalkaaga iyo dhulkaaga iyo caruurtaada duwarkaaga isaguna wuxuu ahaa nin la mid ah SNM oo daafacayay dad Somaliland isaga oo warkaya inay cadow ku yihiin shirkii Boorame waxaynu ku heshiinay oo lagu qoray ahdi qarameedkii in Somaliland iyadu aanay nacayb iyo colaad su dilin in lagu dhaxabuuray masiibada dhacday sidaa darteed kii ka dagaalamayay laascaanood iyo kii Boorame ka dagaalamayay iyo kii SNM inay intuba isku xuquuq iyo karaamo iyo sharaf yihiin oo ay maanta Soomaaliya daafacay oo kooda dhintay iyo kooda dhaawaca iyo kooda maanta jooga ay ku noqon doonaan ahdi qarameedka Somaliland mid siman oo ay wada leeyihiin oo aanu midna mid cadow iyo xumaan u ahayn oo taariikhdu wada leeyihiin halkaas laga soo bilaabay Somaliland halka hadii laga soo bilaabay intii ka dambeysay ogeyn intii aynu soo maray ee shirraha ee aynu dhamayn gurmadkii uu soo galay inay Somaliland midowdo ee uu Siyaad Barre ugu bareeray garaad Cabdilqani ee uu ku yimid balay gubadle ee uu halka ka soo ititibiyay waa kii nabadiisu ku dhamaatay Burco iyo Boorame waa tii lagu dhisay 97 dowladii laba markii lagu doortay Maxamed Xaji Ibrahim Cigaal gurmadkii uu ka yimaaday sheekhi halkan quraanka uu akhriyay Sheekh Cabdullaahi Cali Joor
أي وذا السعودان عبد الرحمن أو علي ومجاهد كي وينها يا سلامة وكوي الله وضع عيدان اسمه كان الدراء أنا بدي بقى إذا لي هل كان بقات كي أي كان قادين إسقى يقول تلا سعودي يا شيخ موسى جواد لهيد يا شيخ أبو بكر لهيد يا أنت رضا لهيد يا الدمات هذو سوق ما حتى قردوفين كي لحدينا واتين كسوق قبل شركي بورمي ولا لا هل كي أي سوق لي مدنودي إيوه تيسيا سد أي كسوق جوريسني واتما تشرف عالم كينوغي يمد عالم كونه كينوغ ما تنايو إن بقى يبتدي كسوقاتي وحنا بلا قاضية إن أنا أرو تاريخ ذا إذا كوه جامية وسيدا يقصوه جاميين عبد الرحمن محمد أحمد علي محمد حاج إبراهيم عقال ظاهر ريال كارين إيا أحمد سيلاي وما توقدن به وضادي سومال لان قرن مدمدة إيا ديسكي هذا أيان هين دورة وإن شاء الله وش سنة كبعدي إيا دو ساودي سن عدي لو دورتين ودي بدورنا تاسي واو سنة سومال لان كدحية انت هو حنوقد بيه سومال لان waxa ay soo martay dar soo dhisatay ay ka soo bilowday kulba tuule iyo shir waxa ay doorasho soo gashay ay tii maanta ugu dambeysay Soomaaliland kaligeed baa samaysay waxay naga caawin jireen wax yar mooyaane hay'adaha iyo deeq qaran bixiyaashu xagga biyaha iyo caafimaadka iyo dawladiska iyo security-ga iyo tan u dambeysay doorashadan dhammaanteed boqolkiiba 80 waxa bixiyay Soomaaliland haday lacag tahay haday aqoon tahay haday soo qaadasho tahay haday ilaalin tahay waxaan mahad gaar ugu noqoyaa oo Ilaahay ka abaalmariyo ku amaano taariikhda ku mudan gudiga doorashooyinka qaranka waxa amaan ku mudan oo hirgeliyay oo xuduudo soo xiray oo amaankeena ilaaliyay ciidamada qaranka kala duwan oo inuu abaal iyo galad ugu haynaa oo aynaan la'aantoona maanta halka fadhiyaan doorashadana aynu qaadeen oo aynu xusuusnaan doonaan qadari doonaa hadii Ilaahay ilaahdo waxaan u sheegaynaa caalamku inaanu deyn nagu lahayn waa kuwa halka fadhiye inaan ciidan deyn naqsan oo aan baanka adduunyada ee weyn caawinin oo baanka Afrikana caawinin oo dawladaha Carabeedna caawinin oo kuwa muslimkana Carabin caawinin doorashadayadii hawlahayga Ilaahay iyo ummadda Soomaaliyeed baa isku tashaday walaalaha Soomaaliya jooga xamra waxaan u sheegaynaa inay isku tashadaan oo wadada raacaan oo ay ka baxaan ku tirsanaanta dawladda sheeye iyaga hawlahooda siyaasiga u qabaneen inta wax ka gudbaya araarta Soomaaliland iyadoo inta soo dhan soo qabatay iyadoo waxa soo guura gaadhay haddana waxaynu hor yaalla maanta dhibaatooyin u baahan inaynu wada jir ku maarayno oo aanu xisbiga arina maareyn nina kaliya aanu ku maareyn waxa kamid ah cimilada isbedeshay ee abaaraha dalkeenu ku noqdeen xoolo yaraadeen waxa kamid ah sicir bararka iyo lacagteena hoos u dhacday waxa kamid ah qabiilka oo aad moodo inuu qarankii la dagaalamayo oo ka soo horjeeda oo ay wada socon kar laayihiin waxa kamid ah shaqo la'aanta hawlahaas oo dhan waxaanu ku maareyn karnaa midnimo waxaanu ku maareyn karnaa wada tashi haddii aynu soo qaadno dhibaatooyinka inagu xoog weyn oo kuwa dhaqaalaha oo ay ka mid tahay lacagteena hoos u dhacaysa oo keenaysa saboolnimo iyo dhalinyarada shaqada la mustaqbalkeena ah waxaynu ku maareyn karnaa walaalayaal inaga oo marka hore qalbiga iska aamina oo dalkeena wada dhaqana oo ka baxana qabiilka iyo deegaanka iyo tuulada waxaanu kaga bixi karnaa iyada oo aynu ganacsatadeena dadka hal abuur kale ee shirkadaha waaweyn inoo sameeyay iyaga oo caalamka in ictiraafsanayn oo aan deyn ka qaadan baananka oo aan la xiriirsanayn baananka sharciyad ay ertigu furaan lahayn iyo hablaha inoo sameeyay dhaqaalaha inta la iyo horumarka iyo qaran iyo xukuumadda markay labadoodu iskaashadaan wada shaqeeyaan ee hanteena isugu geyno waxaanu qaadi karnaa tallaabo weyn oo aynu shaqalaanta kaga baxno oo lacagteena kor ugu qaadno oo aynu dhaqaalaheena ku dhisno markaas caalamku wuxuu caamilaya inoo iman doona waayo ninkii dhisa aynu wax la taraa taasi waxay u baahan tahay fikir iyo hawl waana qorshaha dawladda aanu dhisano haddii ay ku dhaqaaqayso waxaynu kaga bixi karnaa faqriga iyada oo sidii Sheekh Cabdullaahi halkan ka sheegay aynu muruqeen iyo dhulkeena aamino lama arag caalamka dad dhan oo yiro xab beeran maayo haddii aan cuntada la beerana waa garow iyo arbaqiyo ma cunno oo waxaanu doonaynaa cunto annagu aanaan beeran
oo laga yaabo caafimaadkeeda iyo tayada cuntada aan la garanayn oo ay ka muuqato maanta cuntada dalka taala ee laynoo soo waaridaa dhallinyaradeenna koraysa say wakaadeen haddii aynu markaa dhulkeenna beerano inu cunteedan la soo baxno oo xooggeeda aynu leenahay walaalayaal gaajada in badan baynu ka baxleen iyo sicir bararka iyo shaqala-aanta dalkeennu maanta wuxuu u baahan yahay waa 452 kun oo tan oo cuntaa oo ah midho waxaynu haysanaa ilaahayna siiye xoolo oo borotiinka maanta adduunka o dhan laga laayahay waxa ilaahayna siiye kalluun oo inaan midna la soo bixin haddana carruurteena maanta nafaqa darra ka muuqata ayayna waa tamar la'aan waxaan u baahannahay inaynu xoogga u jeedsano haddii gobol walba 15 kilomitir kaliya bal gobolkana Sanaag intuu leeyahay bal inta biyo marta eeg gobolka Sanaag haddaynu 15 kilomitir kaliya beero walaalayaal oo aynu u jeedsano fadhi ka baxna ragga muruqale dalkeenu cunto ku filan u heli lahaa maanta waxay nagu ceeba inaynu ka soo iibsano dalalka jaarkeena tamaandhada wax kale ba iska daayo inagoo dalka intaa leeg iyo biyaha intaa leeg hela dabcan waa run biyuhu way yaraadeen laakiin waa inaynu helnaa hab casri ah oo xoolaheena aynu hadda u dhaqno xoolihii guurayay ee soconayay ma soconayso abaaraha dhacay iyo cimiladiisa darteed inuu helo dhulkii uu daaqi jiro wareegaysto xoolaha in la dejiyo oo calaf loo abuuraa wax weyn ma aha waxaynu haysanaa dhakhaatiir xoolaad oo fara badan oo aqoon leh laakiin waa in laga dhagaystaa oo waddadooda raaca maalqabeenku waa inuu maalgeliyaa xoolaha nool oo ah waxa dalkeenna ku habboon ilaahayna siiyey iyo kalluumaysiga ku dheeraan maayo hawlaha inoo yaalla oo aan doonayo inaan wadajir ku wada galno haddaynaan wadajir ku wada gelinna saas baynu baahnaanaynaa far quri fool ma dhaqdo dadkuna wax wadaqabadka u rooy waxaan u gudbayaa doorashada iyo xanafteedii waxaan diyaar u ahay oo tallaabooyinkeeda inaan qaaday haddana aan wadaa waxa lii wixii xanaaf ka dhacay doorashadii inaan bogsiiyo oo weliba aniga laygu jiibsado oo xisbiga kulmiye lagu jiibsado oo walaaladayada wax tirsanaya aanu qaboojinno iyagana waxaa laga rabaa walaaladayada wax tirsanaya inay gar qaataan inay gogasha soo fadhiistaan waxbaan kaa tirsanaya kuwa soo fadhiisan maayo waxbaan kaa tirsanaya gar qaadan maayo waa dhantiin madax dhaqameed iyo odayaaliyadda dowlamayna qabataa diyaar baanu u nahay inaanu goob walba ugu tagno waa u tagnay xaruntoodaan ugu tagnay waanu wada shirnay madax dhaqameedkooda waanu heshiinay waxay igu amreen waan qaatay waana la arki doonaa aniga oo weliba ogol dadkii foodka badan ee guusha keenay inaan ku jiibsado iyaguna ay dul qaataan waxaanu ka sugaynaa walaalada iyaguna ay gar qaataan oo nabadda ku yimaadaan waxaan uga gudbayaa waxaan laga sugayaa dawlad cusub inaan soo dhisno dawladdaa waxaan doonayaa inaan dhowr qodob ka taabto mabaadida ay ku shaqayn doonto horta xilku ma aha marka laysu magacaabo madaxweyne ama wasiir meel qofku ku baraaro oo uu ka taajiro oo dantiis ku qabsan noqon mayso dawladdaanu soo wadno waxaan ballan idinku qaadayaa qof kasta oo xil qabta oo golaha wasiirada ama hay-adaha dawladda ka mid ah hawsha loo dhiibay in lagula xisaabtamo saacad iyo maal wixii loo dhiibay iyo hadday waqti tahayba waxaanu idin mala qaadinaa inta qof bini aadmi kari kara inaanu ku dadaalno sinaan iyo cadaalad oo dadka iyo dalkaba aan u sinaano sidii halkan lagaga dardaarmayay waxay noqon doontaa inay noqoto dawladda la dhis doona iyo shaqaalaheedu in dadku xilka qaranka ay ku kala sarrayn karaan madaxweyne wasiir agaasime janan askar kabtan inay saa u kala sarreeyaan laakiin sharciga loo siman yahay meel kastoo aad joogto waxaan taa uga gudbayaa somalilan maanta waxaa horta la hawl badan oo si hore aynu uga bex jiraanu kaga gudbino waxyaalaha ayna hor yaalla beesha caalamka waa umahadnaqaynaa wixii hore ayna soo tareen iyo waxay nagu caawiyeen waxaan se u sheegaynaa haddaanu somalilan nahay inaanaan ku faraxsanayn in nala caawiyo ee hamigayaga iyo fikraddayadoo ay ahayd inaanu annagu wax caawino haddaanu somalilan nahay waxaanu arkaynaa dadkii aanu isku midka ahayn ee aanu ama kaba itaal roonayn ama kaba aqoob madayn 1960 markaanu gobernimada qaabdanay ay kama tahay aanu isku systemka ahayn ee aanu dhammaantay dhaxalay systemkii dawladda Ingiriiska
berigaa xoogga waday dalkoo dhan dalal badan gumaysan jirtay oo ay ka mid tahay Kenya oo ay ka mid tahay Tanzania oo ay ka mid tahay Uganda oo ay ka mid tahay Singapore oo ay ka mid tahay Malaysia oo ay ka mid tahay Korea South Korea isku itaal baynu ahayn markii 60kii qaadan ama ka aqoonmadeen ama ka system dawladdu wanaagsaneyn maanta dhammaantood wayna caawiyaan waxaanay noo arkaan dad aan waxba qabsan karin waxaan leeyahay dhibaatadaasi waxay naga soo gaadhay midnimadii aan raacnay koonfurta oo talaxmada ay khalkhalkaana geliyay waxaanu marageedu yahay dhowr iyo 20 sanadood annaga la ictiraafin dawladeeda iyagana ilaahay ka saaray masiibadu ku jirtay sidaan u kala duwanahay ayaanu u kala duwaneen markaa waxaan qabaa hadday maalintii Soomaaliland kaliya dhaqaaq lahayd maanta inay ka mid ahaan dawladda deeqta bixiya ee tacliinta bixiya ee iyaga lama jeerto aynaan halkaa joognay muwaadiniinta Soomaaliland waxaan ka doonayaa inay taawuf karaan inaanay oranin markay sheekaysanayaan cid inaga wanaagsana barxamar waxa ka dhacaya dalkan waxaynu nahay ka saddexaad ee ugu faqiirsan dadka Soomaaliland tahay waxaynu hooseeyeen Mali iyo Congo kaliya ma aha inaan isma jarano isma hadalno waa inaan eegnaa Korea halkay gaadhay waa inaan eegnaa Malaysia halkay gaadhay waa inaan eegnaa Singapore oo inaga liidatay oo maalintii Malaysia ka baxday la lahaan naga bax kuma qaad karee halka ay marayso inaynu kuwa maalinta la mid ahayn ama Korea baa sheegaya halka inaynu gaadhno 60kii sano ee lumay inaynu ka doodkana waynu u baahanahay haddaynu Soomaaliland nahay uma baahnay inaynu qaylo isu sheekayno taasaan idinku hogaaminahay haddii Ilaahay yiraahdo 5 sano soo socda oo aanu idin la qaadayna marka dalka in caawiya ama deeqaha bixiya waxaan leeyahay kuwa faraxsan inaan qaadano deeq iyo sadaqo ninka Ingiriiska ahaa dalka ugu soo horeeyay loo jeedo Richard Burton wuxuu inaga qoray markuu sayr ka soo baxay heerar ku socday dalkaas waa dalka waxaysi baqshiishisi wala 100 sano ka hor goorma ku gudbana haddii Soomaaliland tahay waxaan muwaadiniinteeda ka dooraya inay taakaf karaan oo kor uga kacaan waa la caawinaya iyo hay'ad baan u shaqo tagaya caalamka waxaan u sheeganaa waxaanu qabsano wax noogu daray waxaanu qabsano ayba wax noogu daraya ee gacan maran ma soo fidinayno waxa kale oo u sheegaynaa ambassador halka fadhiya ee dawladaha Yurub ka yimid iyo caalamka oo dhan haddaanu Soomaaliland nahay budgetka iyaga yar ee aan cidina naga caawin waxaanu ku ilaalinaa 780 kilomitir oo bada maanta adduunka waynu ognahay waxa ka socda dagaalada ka socda dhinac walba 780 kilomitir oo aan wada lahayn oo xeeba oo buuraleyda oo aad sawran karto waa meelo ugu sugan dadka sameeyay baaratay fadqalooyinka ayaanu ku ilaalinaa oo aan cidina naga caawinin oo xooggayaga iyo dadka iyaga shicibka ay wada ilaaliyaan taasi ammaankeeda annaga ku fadhino waa koow waxaan nagula fadhiyaa dalalka jaarka ee Djibouti ka mid tahay ee Ethiopia ka mid tahay iyo Kenya ka mid tahay iyo caalamka oo dhan ilaa Mareykan gaarsii waxay ku fadhiyaan lacagta xoogta aan ku daafacano waxa la wixii fadqalada caalamka fidmanaya waxaanu leenahay waxaanu intaan leenahay waxaanu ku bixinaa nabadgeliyada budgetkayga xooggayaga waxay ka go'an tahay tacliintayada waxay ka go'an tahay dhakhtarkayaga waxay ka go'an tahay jidadkayaga waxay ka go'an tahay horumarkayaga caalamka waxaanu xaq u leenahay inuu abaalmariyo oo inaga caawiyo oo ay Soomaaliland aqoonsadaan waxa ay tahay ayaan caalamka xaq ugu leenahay waayo annaga waxaan tarnaa caalamku waan xuntaa waxaan ku soo gabagabanayaa aniga oo mahadnaqaynta ka soo qayb gashay oo dhan waxaan u mahadnaqaynaa deeq bixiyaashu wixii ayna siiyeen ee hore noogu tawariyeen haddana weli waa u baahanahay waa dhismaynaa laakiin maaha baahi joogto ah oo gacanta soo fidoono insha Allah bismillaah kariim inaanu hore uga baxno waxaan u mahadnaqayaa madaxweynayaashii hore waxaan u mahadnaqayaa dhammaan shacabka Soomaaliyeed muwaadiniinta ah ee birlabta ah ee goobta ah ee dalkooda soo dhistay sida aweeshay u soo dhiseen iyaguna la socda waxaan soo dhaweynayaa madax dhaqameedka iyo jigjiga ee u horeeyo ugaas kulmiye garaad kulmiye ugaas Mustafa iyo madax dhaqameedka Soomaaliland oo dhan oo aan maanta cid ka maqnayn dhammaantood oo mahadnaqaya waxaan u mahadnaqayaa culimada diinka waxaan u mahadnaqayaa dhalinyaradii aan ogaasay oo soo galeen gaar ahaan xaq baan loo inaan ku kulmiye aad ugu sii mahadnaqo waayo iyaga maanta halka ay soo gaarsiiyeen waxa ku soo gabagabeeyay dhammaantiin waa mahadsantiin dalalka jaarka ah waxaan u sheegaynaa dalalka jaarka ah waxaan u sheegaynaa aad iyo aad baad u mahadsantiin maanta waa la kaftamay markii la arkay Djibouti oo waftiga inta la ka socdo iyo jigjigo inta la ka socoto iyo Axmed Soo dawladda federaalka ka arkaya
dabeetana waxaanu kulanay maxamuud xaashi baanu kulan ee aanu kaftanay wuxuu war maanta dawladda jaarku xoog weyna war waa huuna loo dooro way arkayaane galbeedku waa kuwa soo gurmaday gurmadka iyo walaaltimana waxaanu gaarsiinaynaa ilaa iyo Soomaaliland xadka halka ugu bariyaysa annagoo saa gacmaha isu haysana oo uu sii horgali doono insha Allah Cali Khaliif oo aan maanta professor Cali Khaliif oo aad iyo aad ugu baandaqayeen halka fadhiyo haddii Cali Khaliifow aad maanta ay tolo nimanka reer galbeedka la doortay waa sidee waxaan ballan ku qaadayaa galbeedka iyo jaarkoodu iga wad socda inay walaaltinimo iyo nabad iyo taageero barigeeyaan waxaan aad iyo aad ugu mahadnaqayaa xudooydii abwaankii weynaa fanaankii weynaa oo maanta darteen uga yimid halkaa inuu yimaado isagoo aan socon karin dhammaantiin waa mahadsantihiin aad iyo aad baa mahadsantihiin wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu allahu akbar.